meeyar kastoo la doorto waan xukumayaa un ama kulmiye ha ka soo baxo ama wadani ha ka soo baxo ama ucud ha ka soo baxo ciddii wax garan weyda khasabay inta aniga sharcigaa idinka hadhay diyaar baan anigu ahay in aad toos xafiiska igu timaadaan diyaar baan ahay haddaa wax ka garan weydaan inaan commissionka idinla tago diyaar baanu ahay haddii aad madaxweynaha u baahataan inaan madaxweynaha de isla mar ahaanta cabdikariinna waxaan ilaalinayaa nabadgelyadiiyo gadood in la sameeyana de waan kasoo horjeeda ila wasiirkii daakhiligaana hayala yaabina dee hadhowta de marmar baan qadaadka idin qabanaya dee haddii gadood soo baxo marka waxaan jecelahay intaanay intaasiba inaga soo hirgelin in aynu isku dubaridno wada shaqaynta iyo maxaanku dhahdaayay waxyaalahan telefon baan isu soo diri karnaa waynu isu iman karnaa waxbaa la dareemi karaa dareemadana waan sixi karnaa aan dareemada saxno yaan miidiyaha waxba la isu marinin aynu wada xidhiidhno aynu ka sheekayno sidaynu hawshan u dhammaynayno aad iyo aad baa umahadsantiin kacay maanta saacad ku dhow kowdii meelaha waxaa la ii keenay baaq dhalinyaradiinan uu hogaaminayo cabdikariin axmed mooge oo iminka ahaa musharaxii ugu codka badaa magaalada hargeysa ee dhigay record aan hore loo dhigin u malayn maayo inuu jiro murashax yurub iyo meel way adduunkaaba cod intaa leeg keligii helaa oo kale miidiyaha ka dalbaday waxaan doonayaa arrintaa oo xaqii codbixiyaashii la doortay la hor taagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhex galo marka anoo taa ka jawaabaya isla saacaddiiba waan raadiyey inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale mar haddaad baaq dee hawada soo marsan anigu idiin soo marinayo baaqa hawada ee ii kaalay anugu tiwatirna idiin soo marin maayo miirana idiin soo marin maayo ii kaalay aan ku wada hadal leh arrintaasay ku timid marka koobaad aada iyo aad ayaan idiin soo dhaweynaya waxaan idinku hambalyeynayaa isaga iyo raggii la kaambangelay ama la socdoba guushaa weynaa gaadheen waxaa kaloo hambalyanayaa dhammaan shacabka somalilan meelay joogaanba da' kasta rooliyo caruur sheekh iyo shariif miyo magaalo rag iyo dumar qurba joog sida wanaagsan ee niyad samaanta aynu doorashadii u galnay dadku markay niyad samaadaan ee calooshoodu isu fayowdahay wax wada qabsanaan ilaahayna wuu gargaaraa ilaahayna wuu nagu gargaarayo waa doorashadii gaari shil galay oo dad ku dhinteen mooyaane aan wax dhibaatay ka dhicin taasina awood aynu leenahay maahe ilaahay baa inagu gargaaran uga mahadnaqaynaa inaguna caloolsamaan baynu ku dadaalnay nabadda way noogu dhammaatay wanaagna way noogu dhammaatay ummadduna way noogu majeertay taa aynu ilaahay saa nagu siiyey waxaynu ku dadaalanaa inaanay gelin wax shaasheeyaa doorashadeennii doorashooyin ka dambeeya golayaasha iyo mayradeelana inay ku dhammaadaan si turxaan la-aana oo wixii yimaadaba la qaboojiyo waxaan aad uga xumahay inaanu ku dadaalnay in hablahaas doorashada qeyb ka helaan annagu xukumad ahaan kooten loo sameeyaanu soo jeedin golaa sharci dejintaa nagu diiday baarlamaankaa nagu soo diiday waxaanu u howlgallay waxa wixii carqalad ku noqon kara hablaha iyo dhalinyarada doorashada inaanu ka dhaafno dhammaan dhaqaale lagu waajibiyey inuu qofku doorashada ku galo waa ka dhaafna hablaha
haddana nasiib darro wixii waxba kama naas caddaan oo hablihii lama dooranin laba saddex war laga doortay dhimaatinkeenna maanta waxaanu idin ballan qaadaynaa xaqa aa leedihiin iyo doorashada ka cabateen wax alli wixii xaqdarriya xadguduba inaanu kala hawlgalno in xaqa iyo lagu soo celiyo waddadii sax ahayd waddo kasta oo la maranayo in loo maro waddo sharciya baaqiinii jawaabtiisa waxa weeye waanu idin garab taaganahay wixii xuquuqa ee doorashadaa ku leedihiin ee codbixintaa ku leedihiin ee miisaankaa saataa ku leedihiin inaanu u diyaarnahay inaanu idinla hawlgalno oo waddada xaqa ah ee dawga a lagu soo celiyo idinkana gardarra idin qaadi mayno oo wax gardarraa oo xad ku gudubsan dee socon mayso waxaad xaq u leedihiinna anigu madaxweyne ahaan dee waan idinla hirgelinaya sharcigaasaa inoo dhexa baaqii aad tidhahdeen cadaaladda ka soo dhex gala intaasaan ka idhi qorshaha waddaan iyo waxaa yeeli doontaan iyo waxaa ila imanaysaan dee idinka idin taala kulankeenna maantu jawaabtii baaqiina ayuu ahaa annaguna dee midiyaha noo soo mariseenoo ismaan araga madaxda xisbiga iyo xukuumadba waxaan ahayd inanu ka jawaabno oona inagu daahin daaqaas sababtaan u yeelana waxaa weeye xasaasiyad belayn doorashooyinka dadka wax doorta codbixiyaasha in badan maynu soo joogno xamaasad weyn bay qabaan adeer codkaaga sahalo mahay waxaa weeye wixiina waa la diiday war lama diidin waxaagii nina ma diidi karo codkiinii iyo miisaankiinii xisbi iyo qof iyo sharci midna lama diidi karo laakiin dee wuxuu sharciye martaa oo waa boolotigi oo uu hawl badan yahay si degan dadkiina taa haloo ogaado hala deganaado idinkuna wixii aad tabateen iyo waxa qaloocan iyo fikradiina dee waxayla tahay wakti aynu degannahay oo laisu diyaar garoobay aynu ka hadlayno anaga intaasina garantay madaxweyne marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaanan kaaga mahadnaqayaa sida milgaha leh sharafta leh karaamada leh ee degdega ah saaka ayuunba ahayd markii aanu shirki jaraa'id aan qabtay shirki jaraa'idna wuxuu daaraa uun waan ogahay wax walba inay sharci maraan waan qadarinayaa waana sheegay shirkaygii jaraa'id waxayse ahayd baaq codsiya in la ixtiraamo codka shacabka inta badan oo aniga ii codaysay sidoo kalena baaq walaalnimo waxaan u diray mudanayaasha golaha deegaanka ee layla doortay oo aan markaa iyagana si karaamo iyo sharaf leh uga codsaday inay iyaguna ixtiraamaan dadka inta badan qofkii ay u codeeyeen in maanta la garab istaago madaxweyne waa kuu sharaf xukuumaddaadina waa u wanaag in baaqii naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka waa sababta aad u tahay odayga somalilan intaana waan kaa filayey waan kaaga mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay ee iyaguna wanaagun la jecel somalilan ee wanaagga la jecel hargeysa marka madaxweyne anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadiina la wada doortay dhammaantood xisbi walba ha ka sharxnaadaan xisbi walba ha ka soo baxaan aad iyo aad baan madaxweyne kugu mahadnaqaynaa waa ka mahad celinaynaa inaad markaa naaqbashay shacabka somalilan weliba gaar ahaan shacabka reer hargeysa ee codeeyey ee naga filaya inaanu u shaqayno oo aanu u dhisno hargeysa cusub iyagana waxa u khayra u wanaaga in ilaahay siiye madaxweyne ixtiraamaya oo dhegeysanaya oo baaqooda anigu aan afkooda dee ku hadlayan lahaa intii badnayd baa ii codaysaye arrintaha lasoo dhex galo markiiba ka soo jawaabay iyaduna markaa waa sharaf weeye marka dadkiina doortayna sidaa ha u ogaadaan insha allahu tacala madaxweynena inta hadhay waanu insha allahu tacala kula fadhiisan waanu kula dhammayn waa ogol lahay sharciga inay marto waa ogol lahay inay fadhiyo badan marto waa ogol lahay in maaragtay la wada hadlo waxaanan rajaynaya un insha allahu tacaala in dadkeena wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday ee midoobay ee markii ugu horeysay taariikhda hal qof uga wada codeeyey koono kasta oo magaalada ah iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba in markaa insha allahu tacaala waxay raalli ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo shaqo wanaagsan la wada qabto iyadoo la midaysan yahay hargeysadaynu jecel lahayna markaa aynu dhisano waayo caasimadii weeye
magaaladii qaranka weeye magaaladii la wada lahaa weeye hawl weyn baa halkan taal 17 xildhibaan la doortayna xil weyn baa saaran qofka mas'uuliyadda qaadayana wuxuu u baahan yahay inuu isku wado dadka reer Soomaaliland oo dhan waxa la rabaa dadka reer Hargeysa in la isku wado qofka mas'uuliyadda qaadaya markaa uma baahna inuu dhinac u janjeero inuu maartay xisbi gaar ah ku abtirsado waanu karaameynaa xisbiyadaan ka soo baxnay waanu ka mid nahay laakiin haddii dee kuraasta aan u socono aanu helo ummadda oo dhan baanu u shaqaynaynaa qaaraan xisbiyo ku jirin baa jira qaar xisbiyo ku jira marka ummaddana sidaa wanaagsan khayr kale baan ugu shaqaynaynaa madaxweyne marka halka ugu dambaysa waa kuu mahadnaqayaa wanaagga iyo degdega iyo baaqa aad noogu soo jawaabtay waanay ahayd ba iyadoon baaq ahayn inaanu dhammaantayo xildhibaanadu karti si fiisid kuugu nimaadno oo ku soo booqanno marka tanna waxaan uga faa'iidaysanaa madaxweyne booqashadayda xaqa aad noogu lahayd inay tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne